si aan u tijaabiyo daacadnimada saaxiibkay qol qarsoon ayaan galay waxaana iska dhigay qof la waayay oo guriga ka guuray shaqada markuu ka soo baxay ayuu guriga yimid muraayad dhinac kaliya wax laga arko ayaan falcelintiisa kala socday durba wuxuu helay warqadiisa gootinta ee aan uga tagay argagax ayaa galay guriga oo dhan ayuu baadi goob ka bilaabay telefoonkaygana wuu wacay marar badan balse jawaab ma uusan helin markaan arkay indhihiisa oo guduutay oo hin darteed farxad yar ayaan dareemay waayo waxaan ogaaday inuu weli si dhab ah ii jecel yahay laakiin murugadiisii waxay isku beddeshay xanaaq degdeg ah ubixii uu ii siday ayuu muraayadda xoog ugu dhuftay cabsi ayaa i gashay gadaal ayaana u gurtay waxaan gartay inaan joojiyo ciyaarta oo aan baxo furahii ayaan baaray balse markaan jeebka faaruqiyey xaqiiqo qaraar iyo naxdin leh ayaa ii soo baxday degdeg baan ku soo galay furahiina qolka bannaankiisa ayuu ku haray muraayadda ayaan labada gacmood ku garaacay balse qolku waa mid aan codka dibadda u saarin waxba ma uusan maqlayn telefoonkuna signal ma lahayn wadnaha i istaagay kursi ayaan qabtay oo muraayadda ku dhuftay si aan u jabiyo balse muraayaddu xitaa ma dhaqaaqin hadda waxaan ogaaday inaan bixiyey qiimaha doqonnimadayda oo aan si rasmi ah ugu xanibnahay qolkan qarsoon kani qol caadi ma ahayn derbiyadu waa bir daaqaduhuna waa kuwa aan xabaddu karin oo loogu talagalay in lagu dhuunto wax walba waan arkayay waana maqlayay codka bannaanka balse isagu ima maqlayn imana jeedin mulkiilihii guriga lahaana waddanka way ka dhooftay cidna ma ogayn inaan halkan ku jiro habeenkii saaxiibkay wuu soo laabtay isagoo quusan hortiisaan taagnaa waan qaylinayay waan ka xumahay ayaan lahayd balse ima maqlayn qoomamo ayaa i dishay booliiska ayuu u sheegay in la i waayey laakiin waxay ku dhaheen gurigaaga iska aad baaritaan ayaana samaynaynaa wakhtigeeda maalmo ayaan xanibnaa waxaan cunayay cunto gasacadaysan oo dhacday waxaana cabayay biyo miri leh oo wasakh ah markaan haraado wax yar kadib muuqaalkii aan uga tegay ayuu daawaday wuxuuna yidhi nasiib wacan isagoo aan dan ka lahayn sidaas sahlan ayuu iiga samray dhowr maalmood gudahood musqusha ayuu aaday anigoo xanaaqsan ayaan biyo mareenka haraatiyey biyihii saxanka ayaa dhaqaaqay oo ruxmay rajo ayaa i gashay si waali ah ayaana u garaacay biyo mareenka balse onkodka iyo roobka ayaa shanqartii qariyey cabbaar ayuu muraayadda soo eegay kadibna wuu iska tegey waana quustay mar kale ilaa maalintii xigtay waxaan arkay wax aanan filayn oo niyaddayda burburiyey naag kale ayuu guriga keenay halkaasna waxaa ku dhammaaday rajadaydii